wuu ogaa in ay ka tegayso ay baxayso intii ay alaabteeda guranaysay oo dhan. isagu kursiga dheer ee fadhiga ayuu ku jiifay oo telefishinka oo cod gaaban ku baxaya daawanayay. maya ma daawanayn ee indhaha ayuunbuu ku hayay, isaga oo aan ilqoodha ka eegin waxa uu daaqadda ka arkaa baraf dhacaya. ilaa xalay baraf baa dhacayay oo dhulka iyo wax walba daboolay. alaab badaniba guriga uma oolin ee maryaheedii yaraa iyo indhakuulihii iyo dhaashiyadii bay shandad garabka la sudha ku guranaysaa. intaasoo dhan ma ay wada hadlayn. xalay markii ay seexanayeen baa ugu dambaysay in ay wada hadlaan. saakana ma ay wada quraacan, balse isagu weli maba quraacan oo niyadba uma hayo inuu quraacdo. xitaa shaah ma cabbin. iminka wuu la hadli karaa laakiin ma doonayo inuu la hadlo. wuu ogyahay inaanu tegista ka baajin karayn. hadal kale oo macno lahna umaba hayaba, waana sababta keentay inaanu hadda la hadlin. wuu ogyahay daqiiqad kadib inay tagtay oo maqan tahay oo ayna la joogin. yaab iyo fajiciso iyo qaadan waa iyo riya ayay la tahay arrinta oo dhaami. 9 bilood bay isqabeen oo aanay maalin qura kala maqnaan, oo ay isu sheegi jireen in laysu abuuray oo ay abidkood wada noolaanayaan ama wada dhimanayaan. laakiin iminka inaanu dib u arki doonin buu ka fikirayaa. laga yaabee dib dambe abidkeed inuuna muuqeeda u arkin. waa arrin yaab iyo fajiciso leh. dareenku intuu ka tambatay buu xaalad jahwareer ah ku sugan yahay. haa, jahwareerku marna wuu ku wajiqiyaa oo kaa qaylisiiyaa, marna wuu ku aamusiiyaa. aamuska ayaana daran. waa nooc xanuun ah, miyarbeel ah oo dhimashada lacayna. waa sida uu iminka u aamusan yahay ee uuna u dhaqdhaqaaqayn, ee sida meydka kursiga daadsan yahay, ee telefishinka uuna daawanayn oo xitaa waxa ka socda ogayn indhaha ku hayo. inuu la hadlo oo maslaxo oo in ay la joogto ka baryo ayuu dareemayaa, haddana nafsiyada mase awoodu ma hayo. inuu kaco oo ku boodo oo isku duubo oo ku ooyo oo baryo ayuu ka fikirayaa, laakiin awoodu ma hayo. nafiba kuma jirto oo sida meydka ayuu kursiga iska dul yaallaa. waa taa dharkii wada gashatay ee kii dhaxantana kasii dul gashatay, xitaa koofiyad, qoorduub iyo gacmogaashi. waa taa shandadii siibka u xidhatay ee garabka suratay. waa taa dhankii kadinka u dhaqaaqday ee kabihii halkaa yaallay ilatay. sharqanteeda ayuu maqlaa, cadarkeedana urinayaa, balse dhankeeda daymaayo. waa taa albaabkii furtay ee dibadda u baxday ee iridii soo celisay. qab khalaas, tallaabadeeda jarabjarada kasii degaysa ayuu sii maqlayaa. cidhbaha kabaheeda ee sallaanka ku dhacaya waxa aad moodaa nabarro isaga wadnaha lagala dhacayo. qaac wuu kurbanayaa, dhiiggiisu wuu karayaa, neeftu waa ay ku dhegan tahay, wadnuhuna aad buu garaacayaa. iminka tallaabadeedii maqalkiisii waa ay ka gooday. kollay jaranjaradii bay ka degtay oo ka dhammaatay. telefishinka ayuu codka ka xidhay oo labadiisa dhagood awoodda maqalkooda oo dhan soo xaadiriyey. bal inuu maqlo dhawaaqa albaabka dibadda kolka ay ka baxdo ee soo celiso, mise talow way saclaanan oo soo noqon. laga yaabaa in ay jaranjarada fadhiisato oo oydo oo u baahan tahay inaad ka daba tagto oo soo maslaxdo sida dumar badani sameeyaan. wax walba wuu rajaynayaa, xitaa mustaxiilka. ayaan darrada ugu weyni waa haddii uu maqlo jugta albaabka kolka ay ka baxdo. markaa raja dhimatay, wax walibana waa mustaxiil. aad buu dhegaysanayaa. jug buu waa albaabkii oo ay soo xidhay. aad buu u naxay, maye wuu argagaxay. dhabta iyo dhalanteedka ayaa iskaga darsamay oo qisada oo dhammi inay ismootiis tahay buu rajeeyey. hareerihiisa ayuu eegay. waa cidla. qolkii hurdada oo ballaqan buu jaleecay. waana cidla oo sariirtii oo madhan oo aan la goglin baa ka muuqata. ogaan la-aan buu isu taagay oo dhanka daaqadda dhalada ah u dhaqaaqay. wuu ogyahay in ay daaqadda soo hoos marayso oo halkaa muuqata baska ka raaci doonto. dhan kale mari mayso. waa tan hoostiisa maraysa iminka iyada oo shandadii garabka ku sidata. dusha baraf khafiif ah baa kaga qubanaya.
arkayaa dhulkana baraf aad u cad oo macaan oo aan dabayl lahayn baa buuxa. In ay istaagto oo dib soo eegto iyo inuu isagu daaqadda furo oo u yeedho labaduba wuu rajeeyey, laakiin midina ma dhicin. waa taa si deggan isaga sii socota. socod ma ahe isaga waxa ay la mid tahay jidhkiisa oo qaybi sii jiidmayso oo kasii go'ayso. cagaheedu barafka ayay quusayaan oo ka tegaya raad godad ah. waxa uu dareemayaa inay yihiin godad sanbabadiisa laga qodayo. isaga oo daaqadda taagan oo aan ka libiqsanayn waa taa sii fogaanaysaa ee sii fogaanaysaa ee sii fogaanaysaa iyadoo aan mar qura horteeda mooye dhinac kaleba dayeyn. waa taa gaadhay ee joogsatay goobtii hakadka baska. bal in ay mar qura dib soo jaleecdo ayuu sugayaa oo filanayaa, laakiin maya, filashadiisu way beenowday. waa kaa baskii horteeda istaagay ee albaabka u furay ee sida xabaasha u liqay. dalaq waa kaa baskii dhaqaaqay ee markiiba dhir badan ku dhex libdhay sidii dhagarqaba nafgooyay oo nacab ah. khalaas, raadkeeda barafka kasii qodan oo keliya ayaa ka hadhay qoftii tameed ee ay isku ogaayeen inay abidkood wada noolaadaan oo wada dhintaan. taasina waxay ahayd sheekadii laga magac baxday ballanfuul ee 30kii bishii koowaad 2021 uu halabuuray qoraa Ibraahim Hawdi Yuusuf. waa tahay saaxiibayaal, intaynu muuqaalka xiga ku kulmi doono waa guuleynaajiyo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.